asalaamu calaykum soo dhawow libaax iyo libaaxad maanta waxaan doonayaa inaan kuu sharxo filim lagu magacaabo close range ka horse intaanan u gudagelin muuqaalka waxaan rabaa inaan ku yaro weydiiyo su-aal aad u basiida laga yaabo caawa inaad iga wada daftaan su-aasha oo jawaabta aad wada halishaan haddaba eeg sawirkan oo waxaa iga soo saartaa laba farqi oo u dhexaysa labadan sawir yacni laba meel oo ay ku kala duwan yihiin haddaba aynu soo laabana muuqaalkeena maanta bilowga filimka waxaan aragnaa nin lagu magacaabo Clinton waa askari hore oo ka tirsan ciidamada Ameerika ee ka dagaalami jiray Ciraaq waxa uu hadda ku dhex jiraa madaxafka dalka Mexico laxdaadkii ugu horeeyay ee uu gudaha soo galo waxaa loo baarayaa si adag maadaama meeshu ay xarun ama base u tahay maafiyada intaa kadib Clinton markii uu gudaha soo galo waxa uu imaanayaa wiish si uu u fuulo qaybta sare isla markiina waxaa soo raacaya laba kamid ah maafiyadii Clinton oo markiiba dareemay qorshahooda waxa uu ku dhex garaacayaa wiishka intuusan isfurin intaa kadib markii uu soo baxa banaanka haddana waxaa ka hor imaanaya koox kale sida iska cadna Clinton waxa uu ka takhalusayaa dhammaantood wuxuuna soo galayaa qol ay ku jireen mid la dhashay hogaamiyaha maafiyada iyo koox kale Clinton oo aan la hadlinba markii waxa uu garaacayaa dhammaantood maadaama ay soo afduubteen gabar lagu magacaabo Herli markii uu wada garaaca dhammaantoodna waxa uu soo qabanayaa midkii la dhashay hogaamiyaha maafiyada isagoo weydiinayay inuu u sheego qolka ay geliyeen oo ay ku qariyeen gabadha haddii kalena uu nafta jari doono tanna ay noqon doonto laxdaadkiisa ugu dambeeyay ee nolosha isla waqtigaana qayb ka mid ah security-gu waxa ay daawanayeen ficiladii Clinton iyagoo markii dambena go'aansanayay inay soo aadaan dhinaciisa si ay u soo qabtaan halka Clinton isaguna markaan uu si aad u garaacayo kii la dhashay hogaamiyaha maafiyada ilaa uu keeno qolkii ay ku qariyeen gabadhii Clinton markii uu soo galo gudaha qolka waxa uu arkayaa Herli oo dhulka fadhisa isla markiiba waxa uu dhameynayaa kii la dhashay hogaamiyaha maafiyada wuxuuna soo kaxaysanayaa markiiba Herli laakiin sikadiisa waxa uga hor imaanaya security madaxafka balse isagoon kala soocin waxa uu bilaabayaa in iyaguna uu garaaco ilaa uu ka takhaluso goobtan uu ka soo baxo isagoo oo weliba hore u sita Herli iyo falaashay ka buuxaan dhammaan macluumaadkii ku saabsanaa maafiyada intaa kadibna waxa uu cagta saarayaa laamiga ama highwayga isagoo raba inuu ka baxo xuduudda Mexico una laabto dalkiisa Ameerika waxyar kadib markii ay kasoo gudbeen xadkii Herli waxa ay bilaabaysaa inay weydiiso Clinton sababta ay maafiyadu u soo afduubteen isagoo dhoola cadeynaya waxa uu ugu jawaabayaa weydiiyo su-aashan ninka qaba hooyada dhinaca kale markaan waxaan aragnaa hogaamiyihii maafiyada oo sagootinaya walaalkiisa kale kaaw lagu magacaabo Coloso isagoona ugu soo argudo walaalkiisii ka yaraa oo uu dilay Clinton isagoo u sheegaya inuu iska taxadaro naftiisana uu ilaaliyo laakiin mar qor waxa uu wacayaa mid kamid ah ciidankiisii isagoo uu weydiinaya sababta uu halkan u soo weeraray Clinton ninkii waxa uu hogaamiyaha u sheegayaa in walaalkiisii iyo koox la socotay ay marka horeba soo afduubteen gabar uu dhalay maadaama Mag uu u diiday inuu u qabto hool ay iyagu u dirsadeen hogaamiyihii mar kale waxa uu ninkii weydiiyey falaashkii ay ku jireen macluumaadkii maafiyada waxa uu sheegayaa in isagana uu qaatay Clinton hogaamiyihii hadalka aad uga carooday waxa uu mar kale u yeerayaa walaalkiis isagoo u sheegaya in wax sidaan oo dhan sameeyay uu yahay hal shakhsi ayna tahay inay uga taqalusan si wadajir ah ama Clinton isaguna waxa uu Herli keenayaa gurigii hooyadeed isla markiiba Herli hooyadeed waxa ay u mahadcelinaysaa Clinton maadaama uu gabadheeda u soo badbaadiyey si lamida gabadhiisa iska dheh sababtoo ah waxa uu yahay abti oo waxa isla dhasheen iyada balse waxa ay isugu dhaceen Mag dartiis oo ah ninka iyada qaba intaa kadibna Clinton waxa uu sii sheegayaa in kooxdii maafiyada ay soo weerari doonto ayna imaan doonto gurigooda sidaa darteedna ay si dhaqsi ah uga ruqaansadaan dhinaca kale markaan waxaan aragnaa askarigan oo lagu magacaabo Casper haddaad maqli jirtay Buster waa kan oo kale yacni waxa uu yahay askari faasid ah oo waxa uu la shaqaystaan burcadda dhinacna waxa uu ka yahay askari intaa kadib markaan waxaa soo wacaya hogaamiyihii maafiyada isagoo u sheegaya dhammaan wixii ka dhacay madaxafka wuxuuna u sheegayaa inuu u soo diri doono macluumaad iyo sawiro ay tahay in shaqadoodu uu qabto bilaa amar Casper markii uu arko sawirkii uu soo diray maafiyada isla markiiba waxa uu ogaanayaa inuu yahay Clinton wuxuuna mar kale wacayaa hogaamiyihii isagoo u sheegaya in Clinton uu ahaa askari hore weliba kuwooda ugu khibradda sare ee laga cabsado balse hadda uu ka tagay shaqada uu ka cararay maadaama ay isku dhaceen taliyihiisa yacni amar diido intaa kadib hogaamiyihii waxa uu Casper ku amriyay inuu aado gurigii ay degneed Herli hooyadeed uuna soo qabto haddii ay joogto halka isla xilligaana Herli iyo hooyadeedna ay ku jiraan daqiiqadii ugu dambeeyay ee gurigooda maadaama ay doonayaan inay ka ruqaansadaan inta aysan kusoo gaarin maafiyada halka Clinton isaguna uu kor ka ilaalinayo inta isdiyaarinayeen maadaama waqti walba ay maafiyadu soo weerari karto balse waa mar Herli iyo hooyadeedba ay kasoo ruqaansadeen gurigii oo ay imaadeen banaanka si ay u baxaan balse mar qoro waxay ka war helayaan Mag oo irida jooga misena doonaya in isaga gaarigiisa ay raacaan Clinton oo aad u qeylinaya waxa uu sheegayaa in tala markan aysan gacantiisa ku jirin walaashii iyo gabadheed dib walba oo ku dhacana ay isaga dartiisa u marayaan iyagoo la hadlina waxay alaabtii saaranayaan gaarigii Clinton intaa kadib markii ay doonayeen inay dhaqaaqaan waxay milicsanayaan askar ku soo socota dhinacooda Clinton markiiba waxa uu walaashii u sheegayaa in iyada ay la hadasho askarta isagana uu meel kaga dhuuman doono guriga maadaama ay isaga raadinayaan oo ay badi ciidamaduba ku raad joogaan daqiiqada kadibna waxa uu meesha imaanaya Casper oo ay la socdaan laba askari kale waxa uu marka hore la hadlayaa Herli hooyadeed laakiin isagoon hadalka u dhammeyn mar qura waxa uu arkayaa Mag oo meesha taagan isla markiiba waxa uu saaxiibadii ku amriyay inay jeebeeyaan
baxaan, halka isaguna uu mar kale u imaanaya Hailey hooyadeed isagoo weydiinaya halka uu ku jiro Clinton. laakiin iyadoosanba ka muuqanin wax walwala waxa ay u sheegaysaa in aysanba sanado arkin walaalkeed maadaama uu dhexeeyay khilaaf aad u adag. Kasbar oo aan warkeeda rumaysanaynin waxa uu dhegta uga dhibcinayaa in Clinton uu ku jiro guriga, balse isaga uusan waxba gaarsiin doonin haddii uu hadda u soo baxo bannaanka, isagoo weliba kula hadlaya cod dheer. balse waxyar kadib markii uu waayay wax raad ah, waxa uu saaxiibadii ku amray inay guriga gudaha u galaan oo ay fatashaan. markii ay soo galeenba gudaha, Clinton waxa uu markiiba garaacayaa mid ka mid ah askartii, isagoo aan toos u dilin waxa uu si degdeg ah ugu soo baxayaa bannaanka si uu uga fakado gaari yaalay meesha. laakiin askartii kale oo markiiba arkay iyaguna waxa ay bilaawayaan inay soo ceersadaan oo ay soo daba dhigtaan gaarigooda ilaa ay dhammaantooda cagtooda saaraan waddadii. halka Kasbarna uu xilligaa la sii joogayay Hailey iyo hooyadeed. in muddaha kadib oo labadii askari ceersanayeen, markan waxa ay ka war helayaan Clinton oo istaajiyey gaariga balse ku cararay duurka, halka hogaamiyihii iyo saaxiibadii iyaguna ay markaan imaanayaan gurigii Hailey. Kasbar waxa uu markiiba hogaamiyihii u sheegaya in Clinton uu cararay duurka una daba dhigay laba askari kale si ay u soo qabtaan. hogaamiyihii isaguna markiiba waxa uu qayb ka mid ah ciidankiisa ku amriyay inay dabagalaan Clinton, halka isagana uu u yeerayay Mark maadaama uu sameeyay qalad ah inuu diiday inuu la shaqeeyo. Mark oo xaaladdu ay ku xun tahay waxa uu isku dayayaa inuu cudur daarto, laakiin hogaamiyihii waxa uu madaxa kaga dhufanayaa xabad, iyaga oo weliba ay u jeedeen xaaskiisii iyo gabadhiisa indhahooda oo shan ah. intaa kadibna hogaamiyihii waxa uu la hadlayaa Hailey isagoo uu weydiinaya halka Clinton uu geeyay falaashka, balse iyadoo ay ka muuqato xasi daran waxa ay u sheegaysaa in aysanba arrinta waxba kala soconin. dhanka kale Clinton markaan waxa uu qabanayaa mid ka mid ah labadii askari ee xirsanayay, isagoo rabay inuu dilo. waxaa ka daba imaanaya askarigii kale oo ku amriyay inuu isdhiibo inta naftiisu ay caafimaad qabto, balse mar qura waxaa meesha imaanaya kooxdii maafiyada, waxay ku soo furayaan rasaas. nasiib xumase waxay haleelaysaa mid ka mid ah askartii, isla markiiba Clinton waxa uu bilaabayaa inuu difaaco askarigii kana dagaalamaan labadoodii hal goob, iyaga oo go'aansanayay inay laayaan burcadda, balse mar qura askarigii waxaa haleeshay rasaastii burcadda, halka Clinton isaguna uu weli kusii jiro difaaca ilaa uu laayo dhammaantoodii, ilaa markii dambe dagaal adag uu la dhex maro Close oo ah midkii la dhashay hogaamiyaha maafiyada. isla waqtigaana hogaamiyihii maafiyada oo weli jooga gurigii Hailey waxa uu soo wacayaa walaalkiis, mise cidna uma jawaabayso. markiiba waxa uu dareemayaa in Clinton uu ka takhalusay, isagoo mar kale u soo diraya koox kale. dhanka kale hogaamiyihii waxa uu askarigii Kasbar weydiinayaa in macluumaad waafi ah uu ka siiyo Clinton. Kasbar waxa uu sheegayaa in Clinton uu yahay askari ay adag tahay in sidiisa camal la helo, balse hadda ka soo goostay ciidamada maadaama uu diiday amarada taliyihiisa intii uu socday dagaalka Ciraaq, maadaama taliyihii uu ku amray inay dilaan dad aan waxba galabsanin. hogaamiyihii waxa uu isaguna Kasbar u sheegayaa inuu hubo uu ku kalsoon yahay in Clinton uu halkan ku soo laaban doono. dhanka kale kooxdii uu soo diray hogaamiyihii iyaguna waxa ay dhex kula kulmayaan Clinton oo u soo socda gurigii Hailey. Clinton markii uu kooxdii indhaha saaro waxa uu bilaabayaa inuu ku dhufto gaariga oo uu jeersiiyo, balse markii uu ka takhalusay midkii koowaad waxa uu kii labaad weydiinayaa waxa ay sidan oo dhan ugu doonayaan falaashka. kii waxa uu sheegayaa in falaashka uu ka buuxo dhammaan noloshii maafiyada, xogahooda iyo dilalkii ay geysteen. Clinton markii uu hadalkii ka dhamaysto uu ka takhalusayaa isagoo u soo ruqaansanaya dhinaca gurigii Hailey iyo hooyadeed. isla waqtigaana waxaan aragnaa askarigii Kasbar iyo hogaamiyihii oo madaxa iskula jira, wuxuuna markaan hogaamiyihii ku amrayaa Kasbar in isaga uu u keeno Clinton, haddii kalena uu waxyeelo u geysan doono xaaskiisa iyo carruurteeda. Kasbar oo aanan hadal oran uu ka aqbalayaa, halka Clinton isla laxdada uu soo gaarayo gurigii walaashiis. markiiba waxa uu arkayaa waardiyey taagan dhinacii ku socday, isagoon la hadlinna uu ka takhalusaya. hogaamiyihii oo isaga jiro gudihii waxa uu arkayaa meydka mid ka mid ah waardiyaashiisii, isla markiiba waxa uu soo xareysanayaa Hailey iyo hooyadeed inta Clinton uu gudaha u soo galin, wuxuuna si cod dheer ugu sheegayaa inuu u soo baxo bannaanka haddii kalena uu arki doono meydka walaashiisa iyo gabadheeda. Clinton oo aan warwarin markiiba waxa uu iskeenayaa bannaanka. hogaamiyihii waxa uu mid ka mid ah ciidankiisii ku amrayaa inuu falaashka ka soo baaro. askarigii markii uu isku dayay inuu baaro, Clinton markiiba waxa uu bilaabayaa dagaal. intaa kadibna waxa uu ka dafayaa biskooladii isagoo goobtii ka bilaabaya rasaas ilaa ay kala fakadaan dhammaantood, wuxuuna markiiba soo galiyaa gudaha si meesha ugala dagaalamo raggii kale, halka walaashiisna ay soo qaadanayso qori kale uu u yaalay guriga. laakiin Clinton waxa uu ku amrayaa in iyada gabadheedaba ay fulaan dabaqa sare, kadibna ay wacdo booliska oo u sheegto xaaladda. laakiin markii ay soo qaadato teelka oo ay doonaysa inay wacdo booliska waxaba ku dhacaysa xabad, halka dagaalkiina uu sii dheeraanayo ilaa Clinton uu u dilo mid mid, balse markaan ay haleesho tabardaro. laakiin isagoo isdhiirinaya waxa uu garaacayaa kooxdii maafiyada ilaa Hailey hooyadeed ay dhinac ka soo gaarto dhaawac. dhanka kale hogaamiyihii isaguna waxa uu ku sugan yahay bannaanka, isagoo doonaya in keliya uu kala jaro haddii Clinton uu soo baxo bannaanka. laakiin mar qura waxa uu dareemayaa in shaqaraysanba ka soconin gudaha, taa uu ka dhigan in ciidankiisii oo dhan uu laayay, wuxuuna mar kale soo diriyaa koox kale, halka waqtigaana Clinton uu walaashii iyo gabadheedba ku amriyay inay ka baxaan dariishada gadaale si ay halkaa uga badbaadaan. waxyar kadib hogaamiyihii isaguna waxa uu soo galiyaa gudahii, isagoo Clinton keliya ka codsanaya inuu u soo dhiibo falaashka, isaguna uusan wax dhibaa gaarsiin doonin. sida iska cadna Clinton waxa uu diidayaa diidmatii u dambeysay ilaa mar kale ay haddana isdagaalaan, halka Clinton walaashiisii gabadheed ay markaan soo galayaan garaash. waxaa gadaasheeda ka imaanaya hogaamiyihii isagoo ku amrayay inay u soo baxaan bannaanka si uu u dilo, balse mar
qura waxaa gadaashiisa ka imaanaya askarigii Kasbar oo markaan go'aankiisa bedelay rabana in hogaamiyaha uu ka takhaluso isagoon seerayna waxa uu ku dhufanayaa xabadii wuxuuna markiiba Harley hooyadeed weydiinayaa falaashka balse waxay u sheegayeen in gacanta ugu jiro Clinton dhanka kale Clinton markii uu ka soo takhaluso maafiyadii oo uu soo baxo banaanka isla markii waxa uu arkaya askarigii Kasbar oo doonayay inuu jeebeeyo walaashii iyo hooyadeed isagoon la hadlinba markii waxa uu ku dhufanayaa xabad isagoo toos u dhaafinaya nafta waxa kadibna waxa uu laabta gelinaya gabadhiisa iyo walaashiisii wuxuuna ku wareejinayaa falaashka in muddo u hamuun qaweyn maafiyadii oo idil haddaba waxaynu soo gaarnay gabagabada iyo gunaanudka mawduuceena maanta waxaan rajaynayaa in muuqaalka aad la dhacday lana wadaagi doonto ugu yaraan mid ka mid ah saaxiibada si isagana ugu daawado mahadsanid saaxiib